filimkan wuxuu ka bilaabmayaa San Francisco. Ridwan Khan oo baaraya meelaha uu madaxweynuhu noqon doono ama istaagi doono. Airport-ku dhaqaaqaya tigidh buu goosan isagoo Washington u socda. waa la baaray isagoo si gaar ah loo baarayo waayo wuxuu akhriyay suuradda Ikhlaas ee qul huwallahu ahad. marka baaristu dhamaatay la weydiinaya maxaa Washington ugu socotaa, wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan madaxweynaha la kulmo si aan fariin u gudbiyo. fariintaas oo ah inaan ahay muslim, magacayguna yahay Ridwan Khan, inaanu ahayn argagixiso. yeeshee intii la baaray diyaaraddu way dhaaftay, waxay dadku kaliftay inuu bas u raaco isagoo fariin u diray xaaskiisa oo ah inaan ballanta aan ka soo bixi doono. Ridwan marka uu yaraa dad badan ayaa dili jiray jaarkiisa, asxaabtiisa ilaa dadka deriska la ah, waayo cudurka autism-ka loo yaqaano kaasoo maskaxda dib u raajinaya kubadceediyo koritaankeeda. hooyadii kama niyad jabin, waxay ku tala gashay inay caawiso ay macallin u geyso kaasoo tababaraya si gooni ah. taasina wax badan ayuu caawiyey. waxaan u arkay inuu Ridwan maskaxiisu aad u shaqeynayso marka uu sameeyey meel biyo xidheen ah inuu mashiinista nugid taas ku dhaqaaqay biyo xidheenka meeshii ku oodneed. kabacdi wuxuu caawiyey hooyadii oo mobilada ku xumaatay fiyadii abjaarka wixii ka wada xumaa waduu wada caawin jiray farnaalka uu kusoo geli jiray. isaga ku mashquulsanayd walaalkii aad iyo aad daryeel xad dhaaf inuu heli jirin, taasoo sababtay inuu wadada uu qaado uu wadankii ka dhoofo uu jaamacad u doonto Mareykanka. laakiin muddo ka bacdi hooyadii ayaa dhimanaysa, wuxuu dhoofayaa Ridwan Khan inuu walaalkii la noolaado Mareykanka, halkaasuu kula kulmi doono dimaashidii oo aad cilmi nafsiga u taqaana oo ay dareemi doonto waxyaabaha dhibka ku haya Ridwan Khan. dimaashidii oo ogaatay waxyaabaha dhibka u keenaya tahay dadka cusub, sanqadha, midabka huruudda ah, waxyaabahaasoo dhan. khibradna way siisay tiraaday keemada ka dhex eeg hadhow ixtibaataa kuma keenaysa mawduuc ka duwan. dhanka kalena walaalkii xubiyay shaqada oo kaasoo yaalay alaabahan dadka u wada qaaqaad meelahooda ku wada gargaarsiiyey. markaasna uu la kulmi doono Mandela. marka uu la hadlo uu ka helo gabadhaas, uu ogaado inaan leedahay ninkeedana uu furay uu ka tegay. uu soo bandhigayo guur laakiinse ay ka diidayso. hal shuruud ayay ku xidhay meel Francisco ka mid ah oo aanay indhahaydu qaban haddaad ay tusto inta guursan doonaa. mar walba istiraada meel cidgeey oo qurux badan indhaheedu ay qabtaan waxay noqotaa meel ay hore u soo aragtay kuwaan niyad jabaa. subax waxaa ka mid ah ayuu ku raacay baabka soo bax markuu soo baxay waa cadceed oo San Francisco sidaa u soo baxay iyo quruxdiisa. Mandela oo ballankeeda ka soo baxday oo guursatay 11 Sebtembar ayaa dhacay. noloshiisana aad ayay u bedeshay maalintaas. waddanka Mareykanka oo aad looga siinay dadka muslimka ah, wax xijaab xidhna dadka oo dhan laga wada siiyay. dimaashidii baa ka mid ahayd. Mandela oo ugu magac dartay inankeeda Salman Khan oo istiraaday magaca ninkaaga cusub ugu ballanqa ee ugu magacda oo dadka iskuul kala dhiganayay ay jir dileen ilaa muslim baato Khan bilada magacaaga uu halkaas ku dhintay inangeedna. Mandela oo ninkii booliska u sheegay in inankaagu uu dhintay cunsuriyad dhanka muslimiinta ka soo jeeda oo muslimiinta lagu naciyay waddanka ah. halkaasna ay ku canaanayso Ridwan Khan oo tiraaday adaa waxaasuna igu wacan haddaan magacaaga ku qori lahayn inankayga dhibaatadaas iyo dhimashadaas uma iman lahayn. halkaasna ay ku wareysay ku dalbanayso inuu furitaan yahay. si caqli gaaban ayuu ku dhahday xillimaan soo noqon doonay ku tahay markaad madaxweynaha aad ka qanciso inaad muslim tahay oo aad argagixisanaad ahayd markaas adigu soo noqon kartaa. Ridwan Khan madaxweynaha safarkiisu ka bilaabmi doona. socdaalkiisa marka waxaan ku shaqeynaa marka camalku kaliya dad badan buu la kulmayaa Mama Chini in muddo la noolaan doona oo caawin doona waana ka sii dhaqaaqi doona. ayadoo loo sheegay gobol u dhow inuu madaxweynuhu soo booqan doono si halkan kula kulan. inta uu dhexda ku sii jiray masaajidka sii galay isagoo imaamku uu ka hadlay in dadka gaalada ay cunsuriyiin yihiin uu intuu ka caydaaday cunsuriyiin maaha inaga cunsuriyiina joojiye khalad. halkaasna saaf dhaaf ka dhacay markuu Ridwan Khan ku dhaaday ninkii sheekha sheeganayay inaad tahay shaydaan aan qof sheekh oo muslim aan lahayn. marka uu gaadhay Ridwan halkii uu madaxweynuhu ka khudbadeen lahaa ayuu intuu gacanta kor u qaaday u dhaaday my name is Khan, qof muslimaan ahay, argagixisana ma yihi. marka argagixiso la maqlo dadkii ku xoobnaa ayaa cadhoonaya oo dhalanaya hayaay argagixis ah oo kala yaacaya. halkaas buuq baa ka dhalanaya, waana la qabanaya, waana la garaacaya, waana la jirdilaya. markuu intuu jeel ku jiro qof markii uu madaxweynuhu khudbadeynayay ayaa kaamiradiisa ku qabtay isagoo dhawaaqa afkiisa ka soo baxaya waa magacaygu waa Ridwan Khan, argagixisana ma yihi. kale waraysi laga qaadaya dimaashidii iyo walaalkii halkaas lagu ogaan doono inaan argagixiso aanu ahayn. halkaas lagu soo deyn doono. marka uu soo baxo arki doona Mandela yeeshee ma rabo inuu la kulmo waayo ballankii uu ka qaaday inuu madaxweynaha la kulmo weli lama kulmo. wuxuu ka arkay George meeshii Mama Chini ay deganeed oo dad qaaday. halkaasna ku go'aansaday inuu dib u noqdo uu soo caawiyo. markuu soo gaadhina uu arkay magaaladii oo dhan uu dad haysto. halkaasuu wariyay markii hortiisa kaga soo qaaday ku arkay meesha wuuna caawinayaa. waxaanu waraysi ka qaaday inuu rabo inuu caawiyo degmada uu dadka wada qaaday. halkaasna dadku aad u jeclaadeen waayo markii
tuhunsanaa inuu yahay argagixis iminkana dadka uu caawinayo inay u soo kordhiyeen dimaashadii baa ka mid ahayd walaalkii baa ka mid ahaa hase yeeshee dadku waxay wada arkeen tvda ka wada arkeen mid madaxweyne u soo sharaxan oo Obama ahaa inuu arkay inuu ninkaas aad dadka u caawinayo tvdan laga sii wada daayay ilmihii markii hore Mandela ka dhintay ayaa saaxiibkeed u yimaaday uu ku dhaaday in geeyaga waxaa dilay hebel halkaasna lagu xiray qofkii dambiga yeeshay Mandela uu dhoofisay ninkeedii ay jeclay oo isla u soo cafi oo dib ugu noqo way arkayso in ninkeeda la rabay in la dilo Ridwan Khan marka dhakhtarkii la geeyay tvga wuxuu ku arkay in Obama uu soo baxay madaxweyne uuna rabo wali inuu la kulmo balantiisa ka soo baxo George uu soo booqdo dowladda madaxweyne uu la galay inuu dadka daad qaadiyo soo booqdo marka uu meeshii uu tago madaxweynuhu soo istaagay ayuu niyad jab ka qaaday oo madaxweynuhu tuqbadiisa dhammaan la hadli doono Ridwan Khan waana dib u noqon doona hase yeeshee madaxweynuhu dib ugu soo noqon